Hello qaraabo, asalaamu calaykum. Soo dhawaada mar kale Mali Football Club. Episode-kan saddexaad waaye. Saa hadda u jeedin kaalinta koowaad aan ku jirnaa. Bishaan hadda aan marayno waa September. Kulamadan waa kulamada micnaha aan dheeli doono. Saa hore u sheegno waxaan rabnaa episode walba inaan hal bil aan dhammeeyno si markaas ay noogu fududaato, ma fahanteen? Hadda waxaan joognaa 10-ka saac ee ugu dambeysa suuqa joognaa. Maadaama aniga aanan samaynaynin wax maxaa la dhahaa iib iyo suuqa waxba ka soo gadanaynin. Marka 10-ka saac waxba nooguma fadhiso aniga wax micno badan ee noo leedahay ma lahan. Kulankeena koowaad waxaan dheelaynaa koob loo yaqaano PSM. Koobkan ani xitaa hore uma maqlin, laakiin waxaa la ii sheegay kooxaha heerka saddexaad inay dheelaan badanaa, ma fahantay? Koobkaana had mar dhow ogaadaba ani xitaa war ma ka hayninba mar dhow ogaaday. Marka koobkaas hadda dheelaynaa waa koob si la ii sheegay knockout oo adiga hal kulanaa la dheelaa. Waxaan u bixinaa Port Vale u bixinaa. Away aan nahnay kulankan, ma fahanteen? Kulankan away aan nahnay. Maxaa waaye weerarkan ugu horreeyay daqiiqadii shanaad soo qaadnay. Markaan Cabdiweli wuxuu u soo celiyay kubadda, wuxuu soo dhigay Holmes, laakiin kubaddaas wuu ka soo gaari waa Holmes. Kubaddan foul waaye balaakiin maxaa ka qaldan referee-ga? Bismillah waaba yaabay kubad foul ma caadi kugu wada isleeyahay. Chapman loo soo tuuray. Chapman, oh my God! Ninkan shooter ku jiro ma ogtahay? Wallahi shooter ku jiro. Waxyar ka bacdina waxaa waaye ninkii hadda ahaa weerarkiisu iska soo qaatay, ma fahanteen? Ninkan yaa celinaya. Horta ninkan player of the season wuuba qaadi doonaaye. Ma fahanteen? Player of the season wuuba qaadi doonaaye. Laakiin waxaan la yaabanahay inta gool uu dhalin doono. Horyaalka hadda markaan fiirino almost goolal badan uu leeyahay, ma fahanteen? Almost goolal badan uu leeyahay. Waxaa la lahaa waaba la yaabanahay. Mideeda kale ninkan Holmes la dhahayana sidoo kale asna garabka caadi u xureysto. Maanta dhan wuu soo socdaa. Baaskiisa, kubad qaadashadiisa, wixiisa dhan way fiican yahay markaan Cabdiweli. Laakiin Cabdiweli kubadda waaba laga qaadaba. Ciyaartan sidaa noogu soo dhamaatay 1-1 noogu soo dhamaatay. Waxaa waaye koobkan lugta labaad inaan mar labaad ku laabanayno. Sida FA Cup-ka oo kale waaye. Oo haddii Breja gashado kale waa ku laaban kartaa. Kulankan waxaan u bixinaa marka Charlton Athletic u bixinaa. Markaan fiirino Charlton Athletic hal dhibac ka sareynaa, ma fahanteen? Kaalinta koowaad ku jirnaa, hal dhibcaana ka sareynaa. Waxaa waaye waxaan leenahay 10 dhibcood aan leenahay, ayagana sidoo kale 9 dhibcood ay leeyihiin. 25 daqiiqo markay mareysay ninkii yaa tahay goosha koowaad rac noogu siiyey, ma fahanteen? Celebrationkiisa salaanta ku tuurtay wash. Waxaa waaye ninkan waxaan aaminsanahay hadda kulan walba micnaha aan dheelno gooluu noo dhalinaya. Kulan walba aan dheelno gooluu noo dhalinaya. Markaana sidoo kale waa kana laakiin taas foul caadi ahayd, foul caadi ahayd. Markaana waa Holmes. Kulamada ugu dambeeyay dhan Holmes oo ku soo bilaaba. Sababtoo ninkii maxaa la dhahaa Cabdulle Ossi dhaawaca galay oo ma aqaanay wax ku dhacay. Dhaawac 3 isbuuc galay. Marka Holmes hadda aan ku soo bilaawno kulamada aan dheelsiinayno ma ku khasaarinba. Waaba nin shaqaysanaya 2 gool loo dheelay, 2 gool hadda noo dhalinayo, ma fahanteen? Ciyaarta marka 3-2 waa nagula badiyay. Waxa waaye guuldaradii ugu horreysay oo nagu dhacday ciyaarta xilli ciyaareedka. Waxaana naga soo gaartay Charlton Athletic. Saasaa marka hadda waxaa ku wayna marka kaalinta koowaad ku waynay. Northampton hadda u bixinaa 7 dhibcood aan leedahay. Anigana 10 dhibcood aan leenahay. Gool dhalinta markaan fiirino James Collins oo ku horeeyo oo Lincoln City u dheelo. Waxaan u maleynayaa aniga waxaa noogu soo dhow Axmed Deeq noogu soo dhow oo asna waxa waaye 4 gool uu leeyahay. Ninkii ahaa maxaa la dhahaa Cabdifataax Axmedna yaataana sidoo kale 3 gool uu leeyahay. 5 kulan oo dheelay, 5 kulan 3 gool oo micnaha uu leeyahay, ma fahanteen? Goolashaas waxaa laga rabaa marka ninkan inuu xoogaa soo badiyaa laga rabaa, ma fahanteen? Goolashaas inuu soo badiyo. Mideeda kalena ninkan waxaan aaminsanahay Premier League markaan tagno ilaa Premier League Championship-ka maxaa la dhahaa koobkaas ninka keli nacaabi kara inuu yahay. Sababtoo qaabka u dheelayo waa world class striker u dheelaa, ma fahanteen? Markana waa kana Axmed Deeq kubadda wuxuu u soo dhiibay Axmed wuxuu kubadda u soo dhiibay James kubadda soo showday. Laakiin waa laga qabtay markan Axmed Deeq waa u soo celiyay. Waa kana Holmes wuxuu u soo celiyay James mar kale soo showday. Kubadda marka James Cabdiweli kubadda bisinko Cabdiweli see wax u wadaa lugta bidixda waa la saaran yahay. Aaboy gool wuxuu dhaliyay wallahi shubuu dhaliyay wallahi. Aaboy markana Northampton waxa waa corner soo saartay laakiin banaanka mariyaan banaanka rigoore nagu heleen daqiiqada 45aad. Birtay ku dhufteen laakiin waa la soo bixiyay. Banaanka lagu tuuro wallahi. Waa kana Deeq kubadda wuxuu u soo celiyay Cabdiweli. Cabdiweli wuxuu u soo dhiibay Axmed birtuu ku dhuftay asna. No birtuu ku dhuftay. Labada birtay ku dhufteen.
Stewart hadda waa keenay moogtahay waxaa waaye waxaa ku bedelay Chapman aa ku bedelay bedelka aa sameeyey. Yacni kubadda waa lasoo dhaafay wuu xanaaqay wallaahi shaaftu waxaa waaye lafuhu ka sheeday ninka. Waa la iska soo bixiyey kubaddaas markaana waa kana Axmed banaanka uu soo bixiyey. Waa kana Cabdiweli aa kubaddan wato. Cabdiweli kubaddan wuu soo qaatay. Cabdiweli wuu soo galay laakiin waa laga xoog badan yahay. Marka ciyaartan sida noogu soo dhammaatay Northampton aa u baxeynay kulankan Ajax away aa ahayn. 3 dhibcoodna waa qaadanay oo sida aan u baahnayn 3 dhibcood maxaa la dhahaa u dagaalamayna waa soo qaadanay kulanka ka horreeyay Charlton Athletic aan u baxaynay taas 3 dhibcood waan ka qaadan weynay oo gooldaradan ugu dhacay intaan ka faa'iidaysanay. Kulankan marka waxaa waaye kulan aan ku soo dhaweynayno kooxdan loo yaqaano maxaa la dhahaa Bolton. Bolton waa koox weyn oo Premier League ka soo dheeshay. Waxaan ku soo dhaweynaynaa KM Park. Saad u jeediinba daqiiqadii ugu horeysay 8 daqiiqo ugu horeysay gool ay nagu hormartay oo hal gool ay nagu leedahay. Bolton ana waxaan islahay xogaha at least un baraaji xitaa haddaa ka raadsatiin wax mushkila ma laha. Markana waa kana Holmes kubadda Axmed oo soo dhigay kubaddaas waa laga badbaadiyey goolaha ka badbaadiyey. Waa kana markana Holmes oo soo galay kubadda waa soo tuuranaya Holmes kubadda waa soo galay diiradda ganaaxa. Markana waa kana Holmes kubadda laakiin goolaha ka badbaadiyey Axmed asna sidoo kale banaanku mariyey. Waxaa u maleysaa horta inaan maxaa la dhahaa weerarkeena uu aad u badan yahay laakiin nasiibka uuna diidan yahay. Markana deeq wuxuu u soo dhigay Axmed waa kana Holmes oo kubaddaas noo soo bareejiyey. Saa sheegaya waxaa u maleysaaba in maxaa la dhahaa nasiibka uuna diidan yahay sababtoo weerarkeena wuu badan yahay zaaid u badan yahay weerarkeena. Laakiin mushkilada jirta waxay tahay in yacni maxaa la dhahaa kubadda mar birta aan ku dhufano maxaa la dhahaa mar yacni goolaha naga badbaadi goole qaar aan dhalin karno goolaha naga badbaadina. Daqiiqada 4aad rigoor aan helnay waxaa u dhiibnay markii Axmed Deeq aa u dhiibnay asna sidoo kale kubadda banaanku mariyey waxaaba la yaabanaaba midaas ma fahantay kubadda banaanku mariyey kubadahaasoo kale wuu dhalin jiray ninkan ma aqaan wax ka qaldanay. Markaana weerar nagu soo qaadeen Bolton waxaa waaye Bolton iyadana sidoo kale aad iyo aad u adag tahay abo heerka libaaxa xataa kubadda badbaadiyey maxay tahay. Waa kana rigoore markaan helay kana Robinson yes come on man Robinson shub waay ninkan wallaahi kulamo badan oo na badbaadiyey wallaahi kulamo badan oo na badbaadiyey asi iyo Chapman kulamo badan oo na badbaadiyaan ma fahantay. waxaa waaye kulankan daqiiqadii 81aad waxaa waaye waxa ay markaas yacni tackle xun sameeyey ninkii Axmed Deeq ahay kubad oo player markaas oo ka soo qaatay Bolton u dheelo ayuu markaas ku xanaaqay. Xanaaqaas dartiisa jaallo ku qaadan macnaha ku qaatay ma fahantay. Arbitran waxaa waaye qof dumar oo ma aqaanay waxaa waaye kulamada hoose ma ida loo dhiibay waa fahmi waayba ma fahantay. Marka ciyaartan sidan nagu soo dhammaatay Bolton Bridge la galnay kooxaha waaweyn oo Bolton iyo Charlton iyo Northampton iyo waxaa u maleysaa xogaha inaan iska celinoono ma fahantay. waxa waaye midna Bridge la galnay midna waa naga badisay tunna waa ka badan 3 dhibcood ka qaadan. Kulanka dhow wixii marka waxaa u bixi doonaa koox former Premier League ahaan jirtay Huddersfield Town. Kulanka waliba away aan nahnay. Garoonkan waa garoon almost 17,000 taageero ay imaato. Garoonkaas hadda u jeedna wuu buuxaa. Anigana waxaa waaye waxaan ku soo dheeli jirnay 3,000 oo taageerada ugu badnaad ma fahantay. Marka taariikh weyn ay noo noqonaysaa markana waa kana kubadda laakiin Chapman markaan soo celiyey waa kan Axmed wuxuu soo dhiibay Holmes wuxuu kubadda u soo dhigay Cabdiweli oo lugaa laga rabaa Cabdiweli kubaddaas lugaa laga rabaa waa soo ceshtay markana waa kana Axmedow haye Axmed laakiin kubaddaas goolaha ka badbaadiyey. Markana waa kana weerar waxay soo qaateen Huddersfield Town maasha Allah kubadda wada laakiin heerka kubadda ka qaatay tackle ku sameeyey wallaahi. Mideeda kalena maanta maadaama dhalashadiisa ay tahay kabtana loogu cimaamado ma fahantay. Ninkan happy birthday la soo dhaho maanta dhalashadiisa waaye marka saas darteeda kabtan micnaha loogu cimaamaday. Waxaa waaye micnaha tackle-ka roosuu ku qaadan karay bismillah. Ninkan niyo buil la iska dhigaa ma fahantay. buil la iska dhigaa waa kana Holmes kubadda markana Holmes daqiiqadii 43aad banaanku soo dhigi doonaa Axmed yes let's go. Ninka Carabao Cup-ka top scorer moogta horta asaga ugu badan goolasha asaga ugu badan top scorer waaye wax ka badan ma lahan 6 gool miya meelahaas uu leeyahay ma leena mise 7 gool uu leeyahay ma fahantay. waali waa wallaahi Holmes kubadda waa soo qaatay banaanku soo dhigay yaatan waxaanoo kale ma gafaayaday waxaanoo kale waa ilmo ka biishaa bisinko let's go 1-0 waxaa waaye Huddersfield Town hadda Carabao Cup-ka hadda sii soconasaan kooxa Premier League ku aadi karnaa laga yaabaa kooxa Premier League inay ku aadno ma fahantay. markana waa kana Cabdiweli ay si qurux badan ugu soo gambiyey wallaahi waa kana Cabdiweli
kubadda Cabdiweli ha wato. Cabdiweli ay cagmiziyadu rid aaway laakiin aaway nasiibka u yeelan weysay. Markana waa kana Banks asna sidoo kale bedel ku imaado. Kulanka horta Shaxda wax badan ay ka bedel, ma fahantay. Shaxda hadda Adelahay wax badan ay ka bedel. Holmes waa dhali gabadhaas. Shaxda hadda Adelahay wax badan ay ka bedel. Waxa dhili jirnay 4-3 dhili jirnay. Hadda waxaan dhili 4-2-1 saddex aan dhili, ma fahantay. Shaxda dhili raa. Shaxda saati ka bacdi wax alaal wixii Carabao Cup iyo FA Cup markaa gaarnay iyo waxyaabahaas oo dhan kulamadaas oo dhan Shaxdaas ku dheelaynaa no. Sababtoo yani xogaa weerar ay leedahay, daafacna way leedahay. Daqiiqadii 26aad almost 4 bedel sameeyay Yatta iyo Cabdullaahi iyo Deeq iyo kulligood waa soo bedelay. Waxa waaye Xasan iyo yani maxaa la dhahaa dad badan aan keenay oo shaqaysanay Davison. Ciyaartana markaas si ku soo dhamaatay waxaas u badan maysan sameynin. Inta ugu dambeysay waxaas u badan maysan macnaha oo ka dhacay garoonka Malan. Wareegga kale u soo gudubna hadda marka ninkii la dhahaa Gabriel Holmes waa ninkii goosha maxaa la hal gool noo dhaliyay, hal goolna maxna caawiyay, ma fahantay. Kulanka ugu dambeeya episode-keena waxaan u baxaynaa kooxda oo macnaha cadowga isku nahanay Wrexham awayaan aan kulankan waa kulan oo maxaa la dhahaa derby ma fahantay. Saawad ogtiin kooxda markaa sameeynayni kulankan Wrexham derby ka dhiganay iidan u baxaynaa waxayna ka mid tahay kooxaha ugu waaweyn ee hadda ka dheelo League One-ka sababtoo mulkiilayaasheeda ninka waxa iska leh Ryan Reynolds iska leh ama yani yarkan oo maxaa la Deadpool deela iska leh waxa waa koox waali waana marka ay yani lacag badanna waa haystaan xayisiimo badan ay haysataa, ma fahantay. Markana waa kana Palmer ninkan Oli Palmer la dhahayna shubay laadan garka weyn Oli Palmer kan shubay asna sidoo kale ina iska ilaalina waa wala horta weerar horta naftan ugu keeneen, ma fahantay. Robinson hadduusan ahaan lahayn markaan 2 gool 3 gool nagu lahaan lahayn. Markana waa kana James kubaddas banaanka soo dhigay Deeq la kubaddas waa laga soo badbaadiyay markana wuxuu u soo celiyay Holmes. Oh my god golaya maxay tahay wuxuu badbaadiyay. Wow golaya wuxuu badbaadiyay maxay tahay. Korno horta aniga ma yani ma soo qaadno madax ma raadinayno kubadda waa soo tuurna laakiin Axmed Dhabala si waa half time kaas ku soo dhamaaday eber ku soo dhamaaday horta waa kulan inuu derby waa laga dareemaa macnaha, ma fahantay. waa kulan adag oo ahay kulan aad iyo adag oo ahaa walaa markana waa kana Smith kubaddaasna waxaa ka soo celiyay Robinson ka soo celiyay waa kana Cabdiweli kubadda loo soo dhigay Cabdiweli kubaddaas waa uu soo baasay wuxuu u soo dhigay Axmed wuxuu u soo celiyay James waa kana mar kale Cabdiweli u soo celiyay Cabdiweli kubaddaas laakiin Cabdiweli tabar ma haysid kubadda isku dhijin tabar ma haysid waa kana Axmed Deeq wuxuu u soo celiyay Axmed Muhammad wuxuu u soo celiyay Holmes. Let's go Gabriel Holmes ma waalan tahay ninkan nin waxa waaye waraa Cabdalla Oosi garabkiisa caadiya loo xoogay wallahi bismillah saan hadday ku sii socoto ninkan waa u dhamaatay moogta bis waaye waa u dhamaatay wallahi Cabdalla Oosi booskiisa caadi loogu xoogay wallahi. daqiiqadii 7aad meelahaasna sidoo kale ninkii Axmed Yatta ahaa kubad qurux badan inta dhaxda ka soo qaatay oo soo gambi oo la soo orday balaayada orada ku jiro wallahi oo markaan golaya wuxuu dhahay maxay haysahay shab 3 dhibcoodna hadda xaqiiq waa noo siiyay 3 dhibcoodna xaqiiq waa soo ku qaadnay, ma fahantay. raggaan ani waxaa sugi la'aa maalinta Premier League isla dheelaynaa sugi la'aa wallahi billahi waa sugi la'aa wallahi raggaan rag u qalmayno player of the season inay qaataan maxaa la dhahaa Ballon d'Or qaataan, ma fahantay. waa rag u qalmo waana kan wait maxaa intooda Ballon d'Or inay wada qaadi doonaan qaarkood kooxa weyn u imaan doono heshiis ka soo dalba doono, ma fahantay. nin walba kooxu taageera kooxda weyn markay u imaato lacag badan u soo bandhigto way nagu adkaan doontaa qaarkood inaan celino aan dhahno kooxda jooga, ma fahantay. marka insha Allah harjeynina laakiin inaan macnaha isla sii joogno ilaa iyo yani heer fiican isla sii joogno kaalin saddexaad hadda ku jirnaa. marka episode-keena marka yani intaas oo way kaana hadda mid cusub episode ku cusub tahay waxa ku leeyahay soo dhawaa mar kale video like subscribe inta maxalla caawinaad dhankiin waa marka kan iyo kiisa kale inta gaaran episode 4 waxaan idin leeyahay King Man idin leh goodbye.